Wararkii ugu dambeeyay haatan waxa ay sheegayaan in xildhibaan Barkad Batoon haatan uu furay gabadhii muddooyinkii ugu dambeysay sida weyn baraha bulshada u qabsatay. Soomaali badan ayaa ku sifaysay in xildhibaan Barkad gabadhani uu ku mehersaday meher aan sax ahayn, balse haatan si kasta uu ku mehersadayba waxa uu sheegay isla markaana uu shaaciyay warbaahinta iyo sidoo kale ummadda Soomaaliyeedba uu kula wadaagay in gabadhaasi uu furay isla markaana hadda laga bilaabo aysan ooridiisa ahayn. Gabadha Mushtaaq Cabdi Naano ayaa iyadana waxaa ku yimi niyad jabkii ugu weynaa abid ee ku dhaca qof Soomaaliyeed. Warbixinta oo dhammaystiran intaan soo gudbin halkani waa kanaalka ansixinta wararka haddii aad ku cusub tahay ku soo biiro ka mid noqo boqolaalka kun ee qof ee sida joogtada u hela wararka iyo warbixinada bartaan ku soo gudbino. Mahadsanidina saaxiibayaal, waxaan idinka dabayngeyn doonaa xaaladda maalmihii u dambeeyay sida weyn baraha bulshada u haysatay. Waa xildhibaan Barkad Jaamac Batoon oo muddaba lagu xamanayay inuu faraxumeeyay isla markaana uu kufsaday gabadha lagu magacaabo Mushtaaq Cabdi Naano oo ka tirsanayd warbaahinta Hargeysa. Dhowaan ayay ahayd kadib markii TV-yada idil ay si leef ah u soo daayeen adeerkeeda Mushtaaq Cabdi Naano oo afka furtay isla markaana sheegay in sifo aan xalaal ahayn lagu guursaday gabadhooda. Waxaana uu sheegay in qabiilka Barkad Batoon uu ka soo jeedo oo gabooye ah iyo sidoo kale qabiilka ay ka soo jeedo Mushtaaq Cabdi Naano oo ah ciida kale inaanay iskiyin isla markaana abidkoodba aysan isguursanin. Waxaana uu sheegay in xildhibaan Barkad sixir uu ku haysto gabadhooda maadaama aanay arkinba muddo 3 bilood oo ay isqabeen. Xildhibaan Barkad Jaamac Batoon oo arrintani laga sugayay inuu ka hadlo isla markaana afka uu furto ayaa haatan waxa israha xogagaalka ah ee halino ee magaalada Hargeysa naga soo gaaray ay sheegayaan in xildhibaan Barkad Jaamac Batoon uu gabi ahaanba furay gabadhaasi. Sidoo kalena waxa uu sheegay in gabadhani markii hore ay isku guursadeen qaab qarsoodiya ama Soomaalidu waxa ay ku taqaano qodob sireedka. Haddaba xildhibaan Barkad Jaamac Batoon gabadhani marka uu guursaday waxa uu sheegay in uu guursaday jacayl dartiisa. Sidoo kale gabadha oo si la yaab leh Barkad ula dhacday teetalkiisa, magaciisa iyo sifada hadalkiisa. Waxaana uu sheegay in muddo badan ba xiriir wadeen isla markaana si aan xaaskiisa iyo reerihiisa iyo sidoo kale ummadda Soomaaliyeedba ay ugu mashquulin in qarsoodi ay isku guursadaan ayay dantu biday. Balse xildhibaan Barkad Jaamac Batoon waxa uu hoosta ka xariiqay in markasta rabitaanku uu ka imanaya dhanka Mushtaaq Cabdi Naano. Sidoo kale waxa uu sheegay in iyadoo ay si weyn isaga shakhsi ahaantiisa ula dhacsanayd aadna ay u taageersanayd si weynna ay u jeclayd jacaylka ay u qaaday iyadu ayaa sababayay in si qarsoodi ay isku guursadaan isla markaana ay wadaad shilimaan yaryar inta ay siiyaan ay guri iskula xaroodaan. Soomaalida haatan waxay si weyn ula yaaban yihiin xildhibaan Barkad Jaamac Batoon arrintani uu ku kacay. Haddaba dad badan oo taageeray xildhibaan Barkad Jaamac Batoon ayaa waxay ahaayeen kuwo u arkayay in sharaftiisa dhulka lala galayo isla markaana lagu dheelayo. Balse saaxiibayaal, ma ahayn mid sharaftiisa dhulka lagu galayo, waxaana ahayd dhacdo runtii ka dhacday magaalada Hargeysa. Ansixinta warar ahaan waxaan idin tusi doonaa idin taabsiin doonaa Barkad Jaamac Batoon foolxumada uu kula kacay Mushtaaq Cabdi Naano. Mushtaaq Cabdi Naano waxay ka mid ahayd hablaha warbaahinta Hargeysa kuwooda ugu cadcad, balse muddo badan oo ay haatan wax ka duubaysay xildhibaan Barkad Jaamac Batoon si weyn ay u taageersanayd waxay kaliftay in xildhibaan Barkad iyadu jacayl u qaado, balse isagu dhankiisa uu si weyn gabadhani iyadana uga helay maadaama ay tahay gabadha laandheera ah oo isaaq ah. Sidoo kale isaguna uu yahay beelaha la haybsooco. Waxa uu go'aan ku gaadhay in iskoorkaasi uu xidho isla markaana isagu uu guursado gabadhaasi. Haddaba gabadha iyadu waxa ay sheegtay in aanay is ogeyn haba yaraatee halka ay xaaladeedu maraysay markii ay isguursanayeen xildhibaan Barkad Jaamac Batoon. Kaliya waxa ay sheegtay in ay ku war heshay iyadoo oo nikaaxi guurku ku dhacay 7 la qaadanaysa Barkad Jaamac Batoon. Jawi degan iyo meel kale guri xitaa Hargeysa ay ka degtay mayse garanaynin. 2 cisho kadib ayuun bay ahayd kadib markii ay meersatay isla markaana ay ogaatay in Barkad odaygeeda yahay. Waxaana ay wax ogaatay kadib markii ay tala faraha ka baxday isla markaana waxay danta iyo sidoo kale duruuftu ku kaliftay in ay aamusto isla markaana ay xaaladani haatan ay ku jirto ku sii jirto. Haddaba xildhibaan Barkad arrintani kama labalabayn maalin iyo haleyl waxa uu ahaa mid dhankeeda u soo janjeersanayay. Reerkiisa ayuu waqti siin jiray balse iyadana waqtigeeda ayuu la qaadan jiray. Haddaba Mushtaaq iyadu waxay ahayd mid reerkooda ka dheeraatay maadaama haddii reerkooda ay ogaan lahaayeen in xildhibaan Barkad uu qabo waxay noqon lahayd runtii mid gacani ay kaga dhacday reerkooda maadaama ay saaqa iyo sidoo kale gabooyuhu si weyn u kala xanaaqaan. Hase yeeshee haddana iyadu waxay ahayd mid aan u muuqan gabooyenimo balse ay kaliya
Mushtaaq Cabdi Naano iyadu ma yahayn mid gabooye u muuqda balse waxay ahayd kaliya mid la dhacsan teatalka xildhibaannimo iyo sidoo kale shakhsiyadda Barkad Shaacabaton. Haddaba Soomaalida degan Somaliland gaar ahaan Hargeysa waxay ahaayeen kuwo si weyn ugu kaftamayay gabadhani guurkeeda iyo sidoo kale jacaylkan ay haatan u qaaday Barkad Shaacabaton. Waxaana lagu kaftamayay runtii halhaysyo aanan anagu soo qaadan karin maadaama aan ku gafayno qabiil ka mid ah Soomaalida. Si walba ha noqotee haddana kaftankaasi ma aha inaanu soo gudbino waxaana kula wadaagi doonaa qaybaha dambe ee barnaamijka. Haddaba saaxiibayaal, Mushtaaq Cabdi Naano waxay ahayd shakhsiyad runtii aad u kaftan badan una furfuran Soomaalina soo jiidata balse qosolka dhoolla cadeynteeda iyo farxadeedu wuxuu sababay in mustaqbalkeeda uu god ku rido maadaama uu Barkad Shaacabaton sidoo doona uu ka yeelay. Si kastaba ha noqotee gabadhu haatan waxay caga dhigatay isla markaana ay u baxsatay haatan waxa ay ku sugan tahay magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana ay sheegaysaa in ay goosan doonto baasaboor cas maadaama ay dalka fadeexad uga baxday. Haddaba Mushtaaq waxay canugeeda yar ee dhashay laga soo qabtay mar aan 2 iyo 3 ahayn iyadoo suuliga ku sii ridaysa maadaama ay haatan aad u niyad jabtay. Si walba ha noqotee Mushtaaq Cabdi Naano waxay isku dayaysaa mar walba in ay disho canugan ay u dhashay Barkad Shaacabaton balse Barkad ayaa ku goodinaya in maxkamaddu loo istaagi doono hadiiba ay wiilkeeda disho. Waxaana uu sheegay in haatan isagu uu leeyahay canuga maadaama ay u dhashay gabadh Isaaq waxaana uu yahay canuga kaliya uu ifka ugu jecel yahay. Si walba ha noqotee saaxiibayaal, bal waxaan idin wadaagi doonaa codad sir oo laga hayo xildhibaan Barkad Shaacabaton oo sheegaya in gabadhani isaga ay ka khaldanay maadaama ay isaga jacayl waaliye u qaaday isaguna uu rabitaankiisa xakameyn waayay. Daawasho wanaagsan codadkaasi sirta ah mahadsantiin haddii ba halkan soo gaadheen muuqaalka like ku qabta gaarsiiya in ka badan 100,000 like maadaama aan idin soo gudbinay xog aydan hore u hayn. Waxaan idinka codsanaynaa inaad share gareysaan muuqaalka. Mahadsanidin. In sifo aan xalaal ahayn lagu guursaday gabadhooda. Waxaana uu sheegay in qabiilka Barkad Shaacabaton uu ka soo jeedo oo gabooye ah iyo sidoo kale qabiilka ay ka soo jeedo Mushtaaq Cabdi Naano oo ah ciida kale inaanay iskiyin isla markaana abidkoodba aysan isguursanin. Waxaana uu sheegay in xildhibaan Barkad sixir uu ku haysto gabadhooda maadaama aanay arkinba muddo 3 bilood oo ay isqabeen. Xildhibaan Barkad Shaacabaton oo arrintani laga sugayay inuu ka hadlo isla markaana afka uu furto ayaa haatan waxa ay siraha xogagaalka ah ee halino ee magaalada Hargeysa naga soo gaaraya ay sheegayaan in xildhibaan Barkad Shaacabaton uu gabi ahaanba furay gabadhaasi. Sidoo kalena waxa uu sheegay in gabadhani markii hore ay isku guursadeen qaab qarsoodiya ama Soomaalidu waxa ay ku taqaano qodob sireedka. Haddaba xildhibaan Barkad Shaacabaton gabadhani marka uu guursaday waxa uu sheegay in uu guursaday jacayl dartiisa sidoo kale gabadha oo si la yaab leh Barkad ula dhacday teatalkiisa magaciisa iyo sifada hadalkiisa. Waxaana uu sheegay in muddo badan ba xiriir wadeen isla markaana si aan xaaskiisa iyo reerihiisa iyo sidoo kale ummadda Soomaaliyeed ba ay ugu mashquulin in qarsoodi ay isku guursadaan.